walaalka waxaad naftaada la jeceshay inaad isna la jeclaato an tuxiba liakhika maa tuxibu linafsik martabad ka hooseysaa jira labadaaba waa tan aynu ka waramayno waa qalbigaaguna caafimaad qabo at least inaad bukin ugu yaraan inaad ahayn qof cuqdad iyo ciil iyo cadho iyo xaasidnimo qaba ugu yaraan inaad noqoto qof laabtiisu ay caafimaad qabto maanta masaa'il baa jira dadku ay fudaydsadeen laakiin aynu midhaheedii hayno maanta caalamulislaami dhammaantii dhib baa ka taagan ma aha inuu dadka ka xoolo yaryahay ma aha inuu dadka ka caqli yaryahay ma aha inuu dadka ka hubi yaryahay waxaasoo dhan maaha ilaa nuclear weapon bay haystaan laakiin waa maxay xaqiiqada jirtaa waxa weeyaan waa inay laabuhu bukaan dabeetana ninba nin rabo inuu reebo ninba nin uu rabo inuu ku ciil baxo midba miduu bagaleeyay jabkiisa mujtamac noocaasina afraad ahaanna ma guulaysto midhmidh uma guulaysto koox kooxna uma guulaysto dowlad ahaanna uma guulaysto walidaalika caalamulislaami waxa yaalla waa uurxumada muslimiinta dhex taalla ayaa midba mid reebaya meel kastoo dagaal ka dhacayo gaalada qaar baa la safan qaar baa dhan kale u safan dhammaantood baa colaada iyo uurxumadu dhex taalla dad badan oo maanta muslimiina waxay ku dhawaaqayaan war hala midoobo oo soomaalidu ugu horeyso soomaalidu way soo karta dhib tiro badan baa soo gaadhay in rubuc qarni ka badan ayay dhulka taagay hadda dad badan baa waxay leeyiin aan dib u midowno haddaynu bukno miyaynu midoobi karnaa su-aasha waa taa haddaan laabtu caafimaad qabin miyaad midoobi karaysaa haddii xanuunada tani idan kelimatulmuslimiin inay midowdo waxaa ka horeeya caafimaad qabto in dad wax wada yeelan kara ay noqdaan qof kasta oo raba inuu ku dhawaaqo midnimo iyo guul iyo walaalnimo iyo dadna waxaa ka horeysa inuu ku dhawaaqo in dadkan iscafiyo oo isasaamaxo oo laabta bukaanka ku jira inuu soo baxo qofkii laabtiisu caafimaad qabtaa ka fardan qof qura xataa hadduu yahay wuxuu seexdaa isagoo caafimaad qaba isagoo aan noloshiisu warwariyo tiiraanya lahayn isagoo aan laabtu huraynin dadka badh baa waxay seexdaan iyagoo cadho la gamila maalinba warka yare uu soo maqlo ama fadhiga kudirarka inta laga lahaa hurdadaba ka qaadaa isagoo ciil qabu sariirtiisa tagaa haddaba waxaan leenahay qofku hadduu calooshu bukooto ma noqdo qof bulshada la noolaan kara ilaahay subxaanaه wa tacaala markuu nebi ibraahim inooga warramay baryadiisii fiirso nebi dhan oo rabbi soo diroo ilaahay baryaya muxuu leeyahy walaa tukhzinii yowma yubcahuun yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim ilaahayow hay hoojinin buu leeyay maanta dadka la soo saarayo maalinta aan xoole iyo caruuritoona wax tarin maalinta qofka quree badbaadaya uu yahay qof caafimaad qaba laabtiisu culammadu waxay yidhaahdaan meesha tan markay joogaan waxay yidhaahdaan salaamatu اlqalb waa laba shay midna waa salaamatu اlqalb laga qaado inaad shirki iyo xumo kale ku jirin laabtaadu inay ka caafimaad qabto gaalnimo iyo qurunkeedo ilaahay towxiidkaadu khaalis yeesho midna waxay yidhaahdaan waa salaamatu sadri ah in makhluuqaadka siiba dadka mu'miniinta inay kaa nabad galaan oo aanad maxay wax laabxumo iyo dhib aanad hayn walidaalika nebi ibraahim ilaahay qur-aanka markuu ammaanayey waxaa la yidhi waina min shiicatihi laibraahim id jaaءa rabbahu biqalbin saliim nebi nuux kooxdiisa waxaa ka mida baa ilaahay yidhi dadka jidkiisii haya nebi ibraahim baa ka mid a id jaaءa rabbahu biqalbin saliim baa ilaahay yidhi markuu rabbigii ula yimid qalbi saliima idan ayuha alaxiba in qalbigaagu caafimaad qaba aday kuu tahay caafimaad qab walidaalik
aakhiro dadka jannada ku jira nicmaysanaya xanuunka ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu sheegay inay ka caafimaad qabaan. macnaheedu waxa weeyaan nicmadii jannada inaanu dhadhaminaynin qofka laabtiisu ay nooca kan tahay. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy haddaabay dhacday in dhibi jirto janno ilaahay u qoray kuwa laga siibaa buu noqonaya. wanazacnaa maa fii suduurihim min ghill ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin. waxaanu ka siibnaa baa ilaahay yidhi wixii laabtooda uun xumo ku jiray, wixii xumo ku jiray. macnaheedu waxa weeyaan saaxibu nicma maaha qofka laabtiisu bugtaa, xataa fi dunya markaa kuma aha. haddaad rabto ahlu jannuhu siday u nool yihiin oo kale inaad u noolaato adoo adduunka jooga, noqon maxay mid laabtiisu caafimaad qabto. ahlu jannaha ilaahay wuxuu ku tilmaamay wahuduu ila ayibi min alqowl. war xunba ma maqlaan, halkan war xunoo badan baad maqli, laakiin waxaad u baahan tahay inaad laabtaada ka shaqayso. markaan dib ugu noqonno saxaabadii ansaar iyo muhaajiriin, ilaahay qur-aanka uu ku ammaanay. muhaajiriinna waa la ammaanay, ansaarna waa la ammaanay. ammaantooda u noqon maayo. ilaahay wuxuu kaloo ammaanay kuwii iyaga raacay. ansaar iyo muhaajiriin kuwii raacay, kuwa raacay maxaa u calaamada? ilaahay subxaanaه wa tacaala laba shay buu ku tilmaamay. mid waa inay rabbigood baryayaan oo ku xidhan yihiin. wاladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluun, kuwii saxaabadaa dabadeed yimi waxay odhanayaan baa ilaahay yidhi rabbana اغfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan. ilaahu noo naxariisa annaga iyo walaaladii naga horeeyey iimaanka naga horeeyey, muslimiintii hore dhintay. walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu. inta mu'minka ee ammaanta joogta ama iman doontana ilaahu laabtayada xuma ha u gelin. gilan bay leeyihin culamaa alusuul aw culamaa luga waxay yidhaahdaan nakira fii siyaaqi nahyi tacumu bay yidhahdaan. hadday nakiradu hayru macrifa shay ah hadduu ku soo arooro siiqo nahyi uu ku jiro, laa tajcal fii quluubina gila, way caam yeeshaa. macnuu waa maxay? waxa weeyaan ilaahow gilli mid yar iyo mid weyn, mid muuqda iyo mid aan muuqan, gilli dhammaantii rabbow naga ilaali bay leeyihin. haddaba ayuha alaxiba, haddii mu'miniintii ka dambaysay saxaabada calaamad kan looga dhigay ilaa qiyaami saaca, dadka barh baa maanta nool muslimkii hore laga rogi la-yay, muslimkii hore dhintay laga rogi la-yay, bale intoodii ugu mudnay. somaydan maqal qaar abubakar iyo cumar iyo caaisha iyo saxaabadii nebi maxamed iyo maxaa la yidhaahdaa saxaabadii uu ka hadlaya wax ka sheegaya. jidkan ma hayaan, jidka kan ma hayaan, waayo saxaabada dadka raacay waxa u ah baa rabbi tilmaamayaa. dadka jidka saxaabada hayaa waa kuwa maxay? aan qalbigooda xumo ku jirin, isla markaana ilaahay u baryaya kuwii ka horreeyey. kuwii ka horreeye nacdalaya waa maxay? ahlu naarka ilaahay wuxuu yihi kulamaa dakhalat ummatun lacanat ukhtaha. wala markay naarta gashaba tii kale naarta gashay ayay nacdashaabaa rabbi subxaanaه wa tacaala uu ku tilmaamaya. taa macnaheed waa maxay? dad baa maadna nool culamada muslimiinta laga rogi laayay, ama dadka muslimiintu wax ka sheegaya. fadhi ku dirarka tag bar soomaalida, qof muslimuun baa la xamanaya hor la wadaa. war dhaqankii islaamku kaa maha. dhaqanka islaamku waxa weeyaan rabbana laa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu kuwa idhaha. ilaahu laabtayada xuma ha u gelinin intii iimaanka laga helay. waa kuwa sidaasi ku ducaysanaya. nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa safwat ullaahi almukhtaara, kuwa ilaahay doortay ee fiicani waa kuwe. su-aal baa nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam, xadiid ibnu maaja iyo bayhaqiba fii shucab aliimaan warinaya, sheekh albaabina saxiix ku tilmaamay. qiila lirasuuli illaahi sala allahu alayh waalih wasalam ayu nnaasi afdalu? qaala kulu makhmuumi اlqalb saduuqi اllisaan. qaluu saduuqi اllisaani nacrifuh
فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam waxaa la weydiiyey dadka yaa u mudan, dadka yaa u fadli badan, yaa mudan, yaa la horaysiin. wuxuu nabigu ku yihi kulu makhmuumi اlqalbi saduuq lisaan. labadaas sifa ciddeyda. saxaabadii waxay yidhahdeen garanay saduuqu lisaanka, carabkiisu ninuu run sheego, runta laazima. beentu waa calaamadda munaafiqiinta iyo gaalada lagu garto. inamaa yaftari اlkadib aladiina laa yuuminuun. intaan ilaahay rumaysnayn baa beenta sheegta baa ilaahay yidhi, beenta abuurta. munaafaqa markii laga warramayana waxaa la yidhi idaa xadaa kadab. saddexdii calaamadood ee munaafiqu lahaana waxa weeyaan hadduu warramayo been buu sheegaa. idan sidqu lisaan wa simat lmu'min. wuxuu nebigu leeyahay runtuna khayrkunbay kuu hogaamisaa ilaa jannada aad ka gasho, beentuna fujuurkay kugu hogaamisaa ilaa aad neerta ka gasho. sidaa awgeed saxaabadu waxay yidhahdeen garanay saduuqu lisaani nacrifu, kan carabkiisu runta sheega garanay. ee famaa makhmuumi اlqalb, makhmuum اlqalbigu waa maxay? wuxuu nebigu ku yidhi waa attaqiyu naqiy, waa mid alla ka cabsaday oo nadiifa. laa ihma fiihi walaa bagi, dembi iyo bagi ama xadgudub iyo qooq ma laha. walaa gila walaa xasad buu nebigu yidhi, uur xumana ma qabo. waa nin alla ka cabsada oo nadiifa buu nebigu ku tilmaamay. ka alla ka cabsada nadiifti waa maxay? waa mid aan macaasida dhumban, dulmigana samaynin, laabtiisuna ay